بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عشر كانوا كساب سيهي أما قبل الله سورة الفجر باللوغ هذا سورة الفجر وصدنا آيادات وآيات قابة وانا سورة كسو دكتور نبينا عليه الصلاة والسلام xilligii uu maka joogay sidaasay jamaahiirta ahlilcilmigu u badan yihiin culimmada qaarkoodna ijmaac bay soo guuriyaan culimmada qaarna waxay ka soo guuriyaan hal nin oo taabiciintii ka mid ahaa inuu yidhi suuraddani madiinay ku soo degtay oo cali bni abi talxa la yidhaha radi allah raximahu allahu tacaala suuraddani waxay soo degtay u dhexaysay waxay soo degtay bacda suurati alleyl walleyli idaa yakshaa suurad ahaan waxaa ku xigtay suuratu alfajri gadaasheedna waxaa soo degtay suuratu duxaa labada suuradood ee hadda musxafka isku xiga ayaa waqtigay soo degtay ay u dhaxaysay xagga zaman iyo waqti ahaan suuraddu magacyo badan ma laha in suuratu alfajri la yidhaahdo oo sida masaaxifta iyo kutubu tafsiirka iyo kutubu sunnadaba ku timid ah iyo in la yidhaahdo suuratu walfajri oo waawga lagu daro labadaba isticmaalka culimmadu waa ku yimaadeen in walfajri la yidhaahdana xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam ma maqlaynaa lagu leeyahay ma maqlaynay dadka ku leeyihiin hadda maqashaan xadiidkii nabigu mucaad markuu salaada dheereeyey waxay ka mid ahayd suuraduhuu nabigu yidhi iyagoo kale maad akhriya dadka maxaa ugu dheeraynaysaa marka suuradaha markuu soo tiriyey waxaa ka mid ahaa walfajri marka qadarka suuradahaasa salaada jamaacada dadka inaan laga dheeraynin weeye inahaas oo aan laga badin waayo dadka waayeel baa ku jira qof xanuunsan baa ku jira qof dan loo degdegayaa ku jira salaaduna dadka way ka dhaxaysaa tii sunno ee gaara inaad dheerayso waa la ogolyahay qofkii aan rabin aan kari karin ha iska tago guriga isaga tukada sunnada gurigay kaga fadli badan tahayba suuratulfajri ma laha fadli gaara oo haddii la akhriyo qur-aankaa uun ajirkiisa maahane fadli gaar ahoo haddii la akhriyo ajirkaa iyo ajirkaasaa laga helayaahi ma jiro dabcan xadiidka dheer ee ubay ibni kacab ee suurad qur-aanka fadliga ugu sheegayna xadiid jira maahoo been nin nuuxuljaamic la yidhaahda uu sameeyey buu ahaa sabab gaaroy suuraddu ku soo degtay oo suganna ma jirto suuradda guud ahaan sabab la wariyey ma jiro aayaadka u dambeeya yaa ayatuha nafsulmutma'inna baa la soo wariyey xadiid cuhmaan ibni cafaan inay ku soo degtay iyo inay xamsata bni cabditalib ku soo degtay labadoodu midna ma sugna midna sal ma laha saa darteed suuradda guud ahaan iyo aayaad gaara oo midna sabab gaara oo ay ku soo degtay oo sugan ay jirtaay ma laha intaasi waa macluumaadka guud ee suuradda suuraddu waxay ka hadlaysaa guud ahaan waa suwarkii makiga ahaa waxay ka hadli jireen oo ah ilaahay in la rumeeyo nicamkiisa in la isxasuusiyo qudradiisa iyo cilmigiisa in la ysu tilmaamo oo la ystuso maalinka aakhirana in la rumeeyo dadku siday u qaybsamayaan aakhiree inna janno u gelayaan inna naar u gelayaanna laga sheekeeyo labadii asaasiga ahayd bay ka hadlayaan suuraddu dee markay suuraduhu ka hadlayaan mid waliba xog ama cilmi dheeraada ama dhinac suuradaha kale aynan ka taaban bay marar badan ka taabataa ilahi wuxuu yihi walfajri walayaalin cashr waalshafci waalwatr walleyli idaa yasr walfajri baan ku dhaartay xilliga waaga berigiisa ah ee salaada subaxi ay soo gasho
walayaalin habeennaan ku dhaartay cashrin oo 10 ah washafci lamaanahan ku dhaartay iyo walwatri midka keligii ah walleyli habeenkan ku dhaartay idaa yasri markii uu socdo soo galo ama sii baxayo hal fii daalika intaan soo sheegnay qasamun dhaar wax ku oola ma u tahay lidii xijrin qofkii caqli leh ee garanayo waxyaabo waaweyn oo mudan in lagu dhaarto rabbina subxaanahu wa tacaala midka abuuree sameeyey uu yahay ma tahay dabcan jawaabtu haa way tahay weeye fajarku waa xilliga iftiinka maalintu bilaabanayo iftiinka habeenka iyo maalinta kala guurkoodu inay aayaadka waaweyn ee ilaahay ka mid yihiinna qur-aanka marar badan baa lagu sheegay marar kala duwanna waa lagu dhaartay wasubxi idaa tanafas subaxa waagiisu markuu soo iftiimo waxaynu ku soo marnay suuratu ida shamsu kuwirat ama suuratu takwiir baynu ku soo marnay marka waaga berigiisa oo iftiinkii maalinta horu dhaca iyo maalintaa iftiinkeeda xilligaa soo bilowday ilaahay waa kii lahaa famaxawnaa aayata alleyli wajacalnaa aayata annahaari mubsira maalinta astaanta iyo calaamadeeduna mid iftiinahoo wax la arkayaan idinka dhignay ujeeddadana waa kii suuratu naba iyo aan ku soo marnayoo litabtaguu fadlan min rabbikum waaye risiq inaad raadsataan oo shaqaysataan oo danaysataan ood xamaalataan wajacalna annahaara macaashan maalintii iftiinkeedii macaashan nolol raadin baan ka dhignayoo mid nolosha iyo kasabka la raadiyo habeenkiina waa la xasilaa iftiinkaa iyo maalintaa iyo qoraxdaa iftiinka muujinaysa ee ifkeedu keenayana in allah keliya keenoon cid kala keenin cid kalena awoodin qur-aanka meelo kala duwan baa lagu sheegay fii suurati alqasas waa ka lagu yidhi qul ara'aytum in jacala allaahu calaykum alnahaara sarmadan ilaa yowmi alqiyaama in jacala allaahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaama man ilaahun hayru llaahi ya'tiikum bidiyaa haddii ilaahay habeen isku bixis noloshaba idinkaga dhigo yaan alla ahaynoo iftiinkan iyo nuurkan idiin keeni kara markii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo ninkii boqorkaa ee gaaloobay ee namruud kutubtu ku sheegeen magaciisa doodii dhex martay ee suuratulbaqarana waa kii ku yidhi fa ina allaha ya'tii bishamsi min almashriqi faati biha min almaqrib fabuhita aladii kafar ilaahay baa dhinacaa bari qoraxdii iyo iftiinka ka keena adugu haddaa rabbi too dunida wax ka maamusho dabagedi oo qoraxdaba dhinaca galbeedka ee u dhacda ka keen fabuhita aladii kafar waa awoodi waayeyo wax jawaaba waa waaye ama jawaab iyo xujo afguri saa ku dhacday intaas waxaa laynoo sheegayaa iftiinkaas maalinta ee bilowday aan soo toosayno nabiguna ina baray ilaahay inaan uga mahad celinno waagu markuu baryo ee aad soo toosto ilaahaygiibaa mahadle axyaana bacdamaa amaatanaa wey wailayhi nushuur ilaahay baa dadka aakhare soo saari doona hadda soo toositaankaaga iyo soo yaaca guryahaan ka soo yaacnayna ilaahay miduu nicmo uu noo nicmeeye wey marka walfajri fajarkaan ku dhaartay oo bilowgii maalinta ah iftiinkii bilowgiisii isbeddel in lagu waansamo ilaahay ugu talagalay ah wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura waa ilaahayga habeenkii iyo maalinta ka dhigay khilfatan isbeddel kuwa isbeddela inuu ku waansamo qofkii doonaya ama ilaahay nicamkiisa ugu shukriyo markii iftiinku yimaado baad garan mugdigaad ku jirtay inaad nafis u baxday duurka markaad joogti iyo markii habeenku kugu dheeraadi iyo markaad rabto inaad xamaal tagtood hawl ka gaarti iyo ee meel waliba xihan tahay waagu markuu soo beriyo neeftaa kaa soo bixi nicmo weyn weeye maalintu ilaahay uu siiyey aadamaha hadday ku shukrinayaan
walayaalin habeennaan ku dhaartay 10 tobanna tobanka habeen saddex mid un weeye saddex tobanka habeenee bisha dilxijo ugu horeysa iyo tobanka habeenee bishan ka dambaysa muxarama ugu horeysa iyo tobanka habeen ee ramadaan ka mid ah ama toban hore weeye aan dhahno ama tobanka dambe ajirka badan aan dhahno saddexdabana waa la yidhi laakiin tobanka muxaram ama bisha zaka ugu horeysa cidda tiri culimo ahaan lama yaqaan dad baa yidhi maahane marka a'immada culimmada tafsiirku soo guurinayaan waqiila waxaa la yidhi iyo dadka qaar baa sidaa yidhi maahane cid la magacaabay maanan arag sida loo badan yahay tobanka ramadaanna ibnu cabbaas baa laga soo guuriyey mana sugno kama asixin sida loo badan yahay salafka iyo khalafku tobankan habeen waa tobanka habeen ee bisha dilxijo ugu horeysay oo maalmaheedii wadata waana maalmaha camalkoodu fadliga badan yahay wey xadiidka ibnu cabbaas ahaa maalmo camal la sameeye ka fadli badan ma jiro tobankaa maalmood nabiga inuu yidhi calayh isalaatu wasalaam oo la yidhi xataa jihaadkana fadliga badnaana ka waran xataa jihaad kama fadli badna ilaa qof isaga iyo naftiisa iyo maalkiisiba jihaadka ku beelay maahane tobankaa maalmood ee fadliga badan baa loo jeedaa waana habeenadoodii tobankii habeenee dilxijo wey sidaasaa ugu dhow washafci lamaanahaan ku dhaartay iyo walwatri midka keliga ah intaan ogahay wax khabar ah oo ku sugnaaday ma jiro waxaa looga jeeda shafci iyo watri culimmaduna ilaa aad baa la isugu maandhaafoo la isugu khilaafay qaar 10 gaarsiiya qaar ka badiyaba waxaa iila dhowaa aniga oo daahirka nusuusta wax waafaqsan laga helayaa in ilaahay shafcigana khalqigiisa uu uga jeedo walwatrina isaga uu isaga jeedo daatadiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay oo watri lagu tilmaamayna way timid sunnaday ku asaxday khalqiga kale oo dhanna shafciya lamaana inuu yahay qur-aankaa sheegay amaa khalqigu lamaana inuu wada yahay wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun wax kastoon abuurnayba labaan ka dhignay lamaanaan ka dhignay wixii inagu qadarkiisa aynu aqoon ku garannay iyo indho ku aragnaba waa mid waxaynan aragna wax ku lamaan buu leeyahay oo u dhigma qowlka sidaa odhanayee shafcigu khalqigaa looga jeedaa oo aqwaashaa ka mid ah watriguna nabigeenna ay ka sugantahay alai sl slam fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra ina lilaahi 99 asman 100 ilaa waaxidan man axsaahaa dakhala aljanna wa huwa witrun yuxibu lwitr ilaahay 99 magac buu leeyahay 100 buu leeyahay mid marka laga reebo soo isku mid maaha 99 buu leeyahay iyo 100 hal dhiman buu leeyahay midka dhahdaba natiijadu isku mid waaye qofkii kooba jannaduu gelayaa ilaahay witrun keligii weeye yuxibu lwitra salaada habeenkii watarka la tukaduu ku dhiirigelinayay lidaalika riwaayadka qaarkood ay yidhaahdeen ya ahla alqur'aani awtiruu fa ina allaha witrun yuxibu lwitr saas darteed culimmada qaar ba waxay yidhahdeen marka xadiidkaa iyagoo dhinac ka eegaya shafciguna waa salaada labalabada ah witriguna waa ragcadda keligeeda laakiin salaaddu dhammaanteed ma wada labalabaa watarka habeenkii maahane maya maqribku waa watar oo 3 ragcadood weeye lidaalika culimmada qaarkood witru nahaar ku magacaabeen calaa kulli xaal aqwaashaa kii la rajaxaba waa iska ijtihaadi xadiidka odhanaya 10ku waa cashru ladxaa weeye watriguna waa yowmu carafa shafciguna yowmu naxri weeye ma sugna xadiidka xadiid sugan oo saxan maaha laakiin aqwaashaa kaawun baa igula dhowaa washafci khalqigaan ku dhaartay iyo walwatri rabbulcizo daatadiisa ku dhaartay ilaahay oo isaga isku dhaartayna marar badan bay timaadaa walleyli habeenkaan ku dhaartay idaa yasri markii uu socdo
siyaaqa aayaadka qaybtiisa hore in lagu fasiraa u dhowo macnuhu ku dhammaystirmaya. hadday fajarku iftiinkii iyo maalin bilowgeed ahayd, maalintii buu xambaarsan yahay. habeenkuna walleyli idaa yasri markii uu si fiican u soo galee socdo ee mugdigu caga dhigta tafsiirka wejka odhanaya baad mooddaa labada macno isqaabilkooda inuu ugu dhow yahay. aayaadkan marka dhaartii wax hadhayba ma jiro. saa haddaynu nidhaanoo khalqigoo dhanna lagu dhaarto, rabbina daatadiisa ku dhaarto, habeenno gaarana lagu dhaarto, habeen iyo maalin iyo iftiin iyo madow ay xambaarsanaayeen iyana lagu dhaartaay, dhaar wax weyn kulansatay oo wax weyn lagu dhaartay wey. saa darteed ba ilaah yidhi hal fii daalika arrinkaa ma ku jira qasamun dhaar lidii xijrin, qof caqli iyo garasho leh oo waxa laga hadlayo weynankiisa qiimayn kara dhaar loogu dhaarta ma tahay? waa tahay. maxaa dhaarta loo dhaaranayaa? dhaartu aayaddu waxay suuraddu xambaarsan tahay oo dhan baa lagu dhaaranayaa, oo ah ilaahayna inuu xaq yahay, aakhire iyo qiyaamihii isoo soo saarkuna xaq tahay. intiin baana laga sheekaynayaa. kadibba waxaa la bilaabay intii diidanayd dhaartaa inay xaq tahay, inay dhaar weyn tahay, ilaahaygaa rabbigaa dhaartay inay rumeeyaan. ummadihii diiday baa saddex laynooga soo qaaday. saddexdii ugu dhibka badnayd waay. saddex ka mida kuwa ugu dhibka badnaa ama uguba daraabaa laynoo soo qaaday. qowmu caad iyo hamuud iyo fircawn baa laynoo soo qaatay. alam tara miyaadan ogeyn kayfa siduu facala ku sameeyey rabbuka rabbiga bicaadin reecaad si ku sameeyey miyaadan ogeyn? irama qabiilkii iram la dhihi jiray ahaa, daatilcimaadi dheerarka u saaxiibka ahaa. dheerarkoodu waxaan laba qiyaasi karin ahaa. haddii aadam la abuuray wa tuuluhu 60 diraacan 60 dhudhun isagoo ah, qiyaastii 20 mitir isagoo ah dheerarkiisu. intii aadam ka farcantay iyagoo kale lama abuurinoo iyagu way ka wada dheeraayeen. intaa iyagu wax dheeraaday ahaayeen. allatii caadkaasoo lam yukhlaq aan la abuurin milahaa iyagoo kaleeto filbilaadi uunkan aanu ilaahay aadama lamida ku abuurin. reecaad aadamaha intii ilaahay abuuray aadam laga soo bilaabo qoladii ugu xooga badnayd bay ahayd. jirkooda, jooggooda, muruqooda, awooddooda cid lamida ilaahay ma abuurin. aayaddani aayaad dhowray la mid tahay oo qisaska reer caad marka laga sheekaynayo xooggooda lagu tilmaamo. aan laba tusaale soo qaadna, marna iyagoo ku faanaya, marna nabigii ilaahay u soo diree huud ahaa oo nicmadaa xasuusinaya. fii suurati alacraaf nebi huud markuu qowmkiisa la hadlaya wuxuu ku yidhi wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuuxin. maxaa ku xiga? wazaadakum fi lkhalqi basta. war xasuusta ilaahay, qowmkii nabi nuux idinkaa ku xigay. qumadii markii duufaanka lagu halaagay kuwii ku xigay ee dhulka la dhaxashiiyey inaad ahaydeen. wazaadakum wuxuu idinku daroo idin dheeraysiiyey fi lkhalqi abuurka bastatan, ballac iyo weynan iyo awood buu idin dheeraysiiyey. dadkii nuuxba ka waaweyn baa laydinka dhigay. kuwii aad dhaxasheen iyagiina waad dhaxasheen, xoog iyo qarana waad dheertihiin. nicmadaa nicmada ilaahay xasuustuu yidhi. laakiin iyagu beddelka ilaahay ku shukrin lahaayeen kibir iyo xoog bay ka qaadeen. oo fii suurati fusilad waxaa laynoogu sheegay faammaa caadun fastakbaruu fi اlardi bigayri اlxaq wa qaaluu man ashaddu mina quwa. waraa waa laydin cadaabi baad leedahaye annaga yaa saxar saa nooga gedin kara, yaaba annagana taaban kara, cidda awood iyo muruq annaga noo sheegan kartee na riixi karta waayo. waammaa caadun fastakbaruu waa kibreen, dhulkii bay ku kibreen, xaqdarra ay ugu kibreen. wa qaaluu waxay yidhaahdeen man ashaddu minaa quwa, annaga yaaba naga xoog badan oo juu noo dhihi kara horta. waa laydin halaagiyo cagtaa laydin mariniyo yaaba na hawaysan kara horta. awalam yarow
ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaynan ogeyn allihii abuuray inuu ka xoog badan yahay markaa khalqi lasoo barbardhigoo la barbardhiga ma laha nimankii caad ahaa ee intaa xoog la ekaa ee intaa muruq ku faani jiray ee awoodda shaa u sheeganayay ilaahay miyaadan ogeyn suu ku sameeyey suu dhulka ula simay gadaal baa laga soo tilmaami doonaa in la wada halaagay quwa caad kow dheh iyo wa hamuuda hamuud ilaahay siduu ku sameeyey miyaadan ogeyn aladiina kuwaasoo jaabuu jaray assakhra dhagaxa jaroo bilwaadi togoga iyo meelaha ku yillay nimanka iyagana xoog waxay ka lahaayeen dhagaxa intay goostaan webigay isaga goyn jiray hadday rabaan buuraha intuu faaska u qaato oo dhinac dhan qoro guri inta qole uu rabaa ka jeexan kara jiray dhagaxa intuu soo qaado weyn iyo buurta iska soo qaado oo meel dhigto guryo ka samaysanaya miyaadan arag macnaheedu inay guryo aan buuraha laga jeexay ahayn inayna lahayn ma aha dhulka jilicsanna daare iyo dabaqyo ay ka dhisan jireen daare iyo dabaqyo bay ka dhisan jireen buurahana dhagaxa bay dhagax ka jeexan jireen ree caad jaziira alcarabiya ay joogeen ardul axqaaf bay joogeen ardul axqaafna waa koonfurta yaman ilaa saltanada cumaan waaye dhulkaasaa la ysku yidhaahdaa axqaaf dhulkaa waaye reer hamuudna madaa'inu saalix bay deganaayeen oo sacuudiga dhexdiisa dhinaca tabuug xigtaa madaa'inu saalix iyo dhulkii waadi lqura aadamuhu jasiiraddan ay ka farcameen dunida kale gadaal baa lagaga faafay aaggan carabta iyo jasiiraddeedii iyo dhulkan shaam iyaa laga farcamay marka wa hamuuda reer hamuud wuxuu ku sameeyey ilaahay miyaadan ogeyn aladiina kuwaasoo jaabuu gooyey assakhra dhagaxa goyn jiray bilwaadi waadiyada togaga dhagaxa toga ku yaallana waa goosan jireenoo gebigaa weyn ee buuraha maraya hadday rabaan isagana waa ku jari jireen ciidan badan buu uma baahnayn biyo xidheedna haddii la samaynayo ama buuro la rarayo ciidan buu uma baahnayn keligiibaa nus iyo intuu uga baahan yahay buurta goosan jiray nimankii xooggaa lahaa iyagana nabigii ilaahay u soo diree saalix ahaa uu ku waaniyey marna fii suurati alacraaf bay ahaydoo wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caadin wabawa'akum fi اlardi tattakhiduuna min suhuulihaa qusuuran watanxituuna aljibaala buyuutan dhulkeedaa dabacsaneen buuraha lahaynna daare iyo dabaqyaad ka dhisataan meesha buuralayda ana buurahaad guryo ka qodataan ree caadna idinkaa ku xigay war wixii aad ku dhacay miyaydaan xasuusnayn taariikh ahaan u maqal warjooga marna fii suurati shucaraa buu ku yidhi watanxituuna aljibaala buyuutan faarihiin idinkoo ku tamashlaynaya buurahay guryo ka qodanayaan awooddaa iyo xooggaasay iyagana aadamuhu soo mareen aadamihii hore inaga horreeyey saasay u xoog badnaayeen innagana intaan itaaliya tabar leenahay waad aragteen markaa isbarbar dhigto ninka buurta keligii guri ka dhisanaya iyo buurta goosanaya iyo innaga markaa isbarbar dhigto 10 kiilo qaadila 5 kiilo dhibba ku tahay inuu waxooga yar hinjiyo intaan isu jirnaa baad u malaynaysaan taa waxaad barbar dhigtaa cimriga iyo da'da intaan isu jirnaa aadam iyo dadkii hore 1000 sano ay noolaan jireen innagana 60 iyo 70 bayd waa yeelku gaaraan intooda badan itaalka iyo awoodda jirku lahaa way soo yaraanaysa cumriguna waa soo gaabanayay khalqiga cumrigiisu waa soo gaabanayay nebi aadan cumrigiisu 1000 sano ah nebi nuuxna falabitha fiihim 1000 sanatin ilaa 50 caaman way iswadeen itaalka iyo xoogga iyo dheerarka iyo da'da iyo cumrigu awoodda jirku lahaa iyo ayaamta sanadaha maraya adkaysigiisa iyo awoodda yare innagu aan leenahay iyo sanadaha yar suu ugu howlgabaya sooma arag goortay 60-70 sano ku marto jirkaaga tabarba kuma harin jirkooduna wuxuu adkaysan jiray 1000 sano innaga hadda haddii 1000 sano aad gaarto
intee buu leekaanayaa qof boqol hadduu gaara baaba'ba maba jiraba saa darteed awoodda jirkoodu iyo acmaarta da'doodu way isku habboonayd mar kastoo nabigu saa darteed waa ka yidhi aadam ilaahay wuxuu abuuray wa tuuluhu 60 diraacan 60 dhudhun isagoo ah baa la abuuray ilaa 20 mitir way famaa zaala alkhalqu yanqus khalqigu hoosunbuu soo dhacayay cimri ahaanna hoos baa loo soo socday itaal ahaan iyo awood ahaan jirkana hoos bay u soo socdeen laba isku beeganoo isu qiyaasi kara jirko inta sare adkaysan karo ba hadba cumrigiisa laga soo dhigi jiray sidii bay ku socotaa intay naga dambaysana 60ka ma adkaysan doonaan mise quruun waxaa soo socotaay 40 baan la dhaafi doonin allahu aclam waa laga yaabaa inay timaado saa darteed reer Thamuud watanxituuna aljibaala buyuutan faarihiin iyagana ilaahay rumeeyaa laga waayay markaasay waxay ku yidhaahdeen yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan atanhaanaa an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wa inanaa lafii shakin mima tadcuuna ilayhi muriib waa ku gacan saydheen caadna qowmkiisii nebi huudna qowmkiisii caad waa ku gacan saydheen iyo wa fircawna fircawn dil awtaadi dhakowyada iyo dhagxaha rukumada ciqaabta lahaa fircawnoo isna ku caanbaxay khalqiga in la cadaabo khalqiga noocyada loo cadaabo iyo sida ummado loo baabi'iyo ku caanbaxay itaaliya awood kuwaa lama ekayn laakiin taariikh wuxuu ka tegey aadamuhu ilaa hadda ay darsaan nin kastoo rabo xuquuq inuu ku tunto ummado baabi'iyo gumaadana taariikhda fircoon baa cashir u ah nin kastoo raba tuqyaan iyo baabi'in ummad inuu ka hortagana qisada nebi muuse iyo reer bani israa'iil baa cashir u ah wa fircawna fircawn dil awtaadi u saaxiibka ahaa rukumada iyo dhakowyada qotonsaday culamada qaar ba waxay yidhaahdeen war maye ahraamaadkan masar ku yaalla isagaa sameeyey ha la dhaho laakiin waxaan lahaynin caddayn taariikh inay fircoonkii sameeyey laga hadlayo baan lahaynin aladiina kuwaasoo saddexdaba marka la isku daro daqow ku kibray filbilaadi adduunkan ku kibray oo qolo walba kibir iyo qooq ka batay oy qolo man ashaddu minaa quwatan yidhaahdeen fircawnna uu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahan ani ahayn oon idiin ogahay ma jiro tala aan tayda ahayna lama qaato maa uriikum ilaa maa araa aniguna weligay ma khaldamaan ahay wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad tala aan tay ahayn lama sheego aniguna taydu weligeedba ma qaldanto rabbukum alaclaa baan ahay yidhi halkaa ka gaaray aladiina kuwaasoo daqow ku kibray fi lbilaadi adduunka oo fa akaruu badiyey fiihaa adduunyada alfasaada fasaad ku badiyey qowmu caadna nimankan reer caad la yidhaahdana waidaa baطashtum jabbaariina waa reer saalaxna hashii mucjizaday dhaheen aayad noo keenay nebi saalex ku dhaheen ee hashii loo soo diray waa kuwii dilay suuratu shamsi noogu iman doonta id inbacaa ashqaaha fakadabuuhu facaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha baa inoo iman doonta faakaruu fiihaa way badiyeen alfasaada bay badiyeen fasaba calayhim alla waa ku dul shubay rabbuka rabbigaa wuxuu ku dul shubay sawta cadaabin nooc cadaabuu qolo walba nooc gaaroo cadaabah buu ku shubay oo ku sii daayey saddexdaba adduunkaa lagu cadaabay mid walbana nooc gaarah baa cadaaboo lagu shubay saddexdabana qur-aankaa laynoogu sheegay amaa reecaad dabayl 7 maalmood iyo 7 habeen isku bixisaa lagu soo daayey markaasaan intii rumaysan mooyeen xabadi ka hadhin maydkoodii baa kadib lasii tilmaamay fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaamin naxisaatin dabayl dhawaq bixinaysaan ku soo daynay maalmo nuxuusoo ayaan darro u ahayd iyaga imisay socotay 7 layaalin wa 8 ayaamin xusuuman oo xiriir ah 7 habeen iyo 8 maalmoodoo isku bixisa bay dabayshii ku socotay
dabayshaasi wax ay dhaafaysoy u timid oo wixii loo soo diraya hal qofoo iyagaa ma dhaafaynin hal qof maa tadaru min shayin atat calayhi ilaa jacalatu karamiimi waay burbur bay ka dhigtay markaasay markay dabayshii istaagtay iyagoo wada intay geedkan quwadda intaa leeg ahaa oo meydkoodii agalaxyahoo daadsan yahay baa qur-aanku sawiray fatara alqawma fiihaa sarca kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya waxaad arkaysaa baa dadkiioo saa u yada yaalla reecaadaha waxaad moodaa timir weyn dabadeedoo salka u soo fuqay geed weyn oo timir ahaa oo intuu dumay xididadii u soo fuqeen dabadooda waa weynankooda saasaad moodaa baa la yidhi iyo dheerarkoodaba timirta dheerarkeeda intay leegtahay ma aragtay weynankoodii iyo dheerarkooda timir xididada u soo fuqeen oo daadsan baad moodaa baa la yidhi soomaaliya geedaha markay dabaylaha waaweyn dhacaan intuu dumo geedka dogobka ee dhacee salku soo fuqay sidood bay halkaa baktigoodii saa loo daadiyey reecaad halkaasaa ku dhacday dabayshaas reer amuudna waxaa layna yidhi sayxatan waaxidatan qaylaa lagu soo daayey dhulkuna waa la gariiray faakhadathm الrajfatu faasbaxuu fii diyaarihim jaahimiina dhulkoo la gariiray iyo qaylo dhaguhu wada dilaaceen baa lagu sii daayey huf hal kama harin iyadana suuro badan baa qur-aanka lagaga soo sheekeeyey qowmu fircawnna waazlafnaa ama alaakhariin nabi muuse markii la yidhi fawxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra faاnfalaqa fakaana kullu firqin kaطawdi اlcadiim baddii baa laba u kala dilaacday faanjaynaa muusa baalku waa ina dhibay faanjaynaa muusa waman macahu ajmaciin muuse iyo intii rumaysay baan badbaadinay waazlafnaa ama alaakhariin qoladii korena waa ku soo dhoweynay wargaara warmara jidku waa bannaan yahay baa qalbiga loogu wada tuuray ma nimankii baad ka haraysaan kuwa dhinaca shay taagan yihiin inta yaree biyaha miyaa markay ku soo daba dhammaadeen kii u horreeyeyna uusan bixin kii u dambeeyeyna soo galay baa la yidhi sii dah biyaha socdaa la yidhi ilaan amar ilaahay bay ku taagnaayeen derbina ma haynin xargana ma qabtaan biye faanjaynaa muusa waman macahu ajmaciin uma agraqnaa bacdu lbaaqiina waay intii soo hadhay baan halaagnay markii biyihii lagu sii daayey fircawn waa ka ashahaatay ilaahay soo qur-aanku ma dhihin wajaxaduu biha way diideen aayaadka ilaah iyo muuse waa diideen wastayqanadaa anfusuhum qalbigooda hoosna way ka og yihiin inay runtahay qalbiga hoose wuu ka og yahay inay muuse runtii yahay isagu been uu sheegayoosan ilaah ahayn in ilaah abuuro mucjize iyo kitaab ilahi ta waa garanayaa laakiin waa diiday markaasuu afka kala furtay aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiina ku yihi waxaan rumeeyey allihii ay muuse iyo dadkiisu rumeeyeen aniguna saacaddaa laga bilaabo muslim baana cadaab ilaahay hadduu soo dego towba lama aqbalo ilahay fi awaakhirta suurat اlancaam soo inuguma dhihin hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik yowma yaأtii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsa iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayran nafaan horay u soo rumaynin iyo haddaan camal saalixa sumayn midna la yskama yeelo waxaa ka mid a qarqarisada inay gaarto qiyaamadu inay timaaddo cadaab inuu soo dego ummad cadaab soo degay laga badbaadiyey qowmu yuunus baa jira falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunus lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizi fircawn waxaa sugan nabigeenu jibriil inuu ka wariyey wuxuu yidhi haddaad i arki lahayd maalinkaas anigoo ciidda dhulka badda intaan ciid dhooba ka soo qaaday fircawn afka u geliyey oo diidaya intuu ku celiyey amay naxariis ilaahay haleeshaayoo laga aqbalaa isleh
isan ku celinin laho afka dhooba ugu guraya haddaad arki lahayd taasi waxba kama duwanaa habaarkii nabi muuse ilaahay aqbalay fii suurati yunis rabbanaa inaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinata alxayaat rabbanaa inaka aatayta زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إله قلبي وضانا أتكي حوله وضانا بابي ونكدك إله يعني كبر رمين إلهي عذابك أركان عذابك مركو كل عينه وقت يتوضي وعنا ماضي فرعون وحالي لكن هل وحبان سميننا فاليوم ننجيك ببدنك litakuuna liman khalfaka aaya jirkaagaanu badbaadin ruuxdaada maaha naftiiyo ruuxdu jirku waa isdaayeen laakiin jirkaagoo lagu waana qaato hadda qoladii caad saa lama dhihin hamuudna saa lama dhihin qowmu nuuxoo 950 sano la dhex joogayna lama dhihin fircawn wax gaaruu wataa balaa ku dhacday oon suuratu naasicaad ku soo tilmaannay saa darteed ilaahay wuxuu yidhi fasaba calayhim rabbigood fasaba calayhim wuxuu ku dul shubay rabbuka rabbigaa sawta cadaabin nooc cadaaba qolo walba si gaaruu ugu cadaabay adduunyada aakhirana waa dhimaya ina rabbaka rabbiga labilmirsaadi kii cimil ugu jira waaye ilaahay dadkaa jooga lalaayahay meel buu ku sugayaayoo wakti buu qof walba la sugayaa waa la waaniyaa wuu nicmeeyaa muddaa loo sugaa wax loo sugaba ilaahay ma halmaansana ilaahay ma halmaansana nabigu waa kii yidhi alayh slam ina allaha la yumlii lilظaalimi qofka daalimka ilaahay waa u sugaa xataa idaa akhadahu lam yuflitu markii uu qabto ma sii daayo muddaa dadkaa loo madax salaaxayay sugitaankaa loo sugayo weliba istidraaj baa lagu samayn nicam baa loo samayn fircawn iyo qoomkiisu 9 aayadood baa la tusay farsalnaa calayhim uطuufaana duufaan baa lagu soo diray war muuse ilaahay la hadal waan toobad keenaynaa hadduu naga qaade waa laga qaaday rah baa lagu soo daayey weelashii ka wada buuxiyey dhiig baa lagu soo daayey injir baa lagu sii daayey la kari waa markii dambe maxay istaageen mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa biha famaa naxnu laka bimuminiin wax kasta ood samayso kolla ku rumayn mayno waa intaas haddana boqortooye iyo maal iyo xoolo iyo iska haysteen ilaa maalinka la halaagayo dharag bay ku jireen ilaahay sooma dhihin fii suurati alancaam falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay diideen oy ka jeedsadeen ay ka tageen wixii lagu waaninayey albaabada adduunyadaa loo furay xataa idaa farixuu bimaa uutuu markay aada ugu farxeen ay si fiican isu dhigteen akhadnaahum baktatan kadis baanu qabannay waay marka labilmirsaadidii markii la kari waaye xariggaa loo sii dayn waxay rabeenna faraha looga buuxin iyagoo isdhigtay oo waxba ma jiro leh oo dhib iyo abaar iyo wixii soo maray halmaamay oo markii la leeyahy war ka daaya marka la yidhaahda ku leh qad masa aabaa'ana dara'u wasaraa'u fa akhadnaahum baktatan waay kadis baa loo qabanayaa saa darteed haddii qof daalima oo dembi galay oo ummad dhibay oo haddana iska jooga aad aragto waa sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuuna waay waa loo xarig daadinayaa si aynan ogeyn sidaa ogow laakiin ilaahay ma halmaansana walaa taxsabanna allaha gaafila camaa yacmalu الظaalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar ilahay inuu halmaansan yaha ha u malaynin marnaba faama alinsaanu insaanka idaa mabtalaahu hadduu imtixaano rabbuhu rabbigii oo faakramahu uu ku maamuuso maal oo wanacamahu u nicmeeyo fayaquulu wuxuu dhihi rabbii rabbigaybaa akramanii isharfayoo ijecel agtiisaan qiimo weyn ka leeyahay waama idaa mabtalaahu hadduu imtixaano oo faqadara calayhi ku ciriiriyo risqahu risqigiisiiyo noloshiiyo maciishadii fayaquulu wuxuu dhihi rabbii rabbigaybaa ahaananii iduleeyo innacay waxaa layna tusayaa 2 arrimood bay aayaddani xambaarsan tahay mid waxay xambaarsan tahay imtixaanka iyo ibtilaan adduunyadan u joognaa innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin
nabtaliihi waan imtixaanaynaa imtixaankuna caafimaadkuna waa imtixaan cudurkuna waa imtixaan faqrigu waa imtixaan dharagti iyo taajirnimaduna waa imtixaan inaad ilmo leedahayna waa imtixaan ilmo la'aantuna waa imtixaan adduunyadan waxa ku marayoo dhan dhib shar iyo khayrba waa imtixaan saa darteed baa aayaddii suuratu ambiyaa ilaahay ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum biاshari wاlkhayri fitna wailaynaa turjacuun naf kasta way dhiman laakiin intaynan dhiman waxaan ku imtixaanaynaa shar iyo khayr baanu idinku imtixaanaynaa qof loo kulmiye iyo qof mid un loo daayaba aakharana ilahay baa usoo noqonaysaano waxaad imtixaankii waxaad natiijo keenteen idinla xisaabtami doona aayad kale suurat اlacraafa soo ma ahayn wanabluukum wabalownaahum biاlxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun waa ku imtixaanay wixii wanaagga ay jeclaayeen iyo wixii ay dhibsanayeen labadaba carruurta iyo haweenkana waa la jecelyahay xoolaad ururisay reer iyo ilmo tabacun soo maa waxaad tabacday oo dhanna reerkii ilmaha ku bixisow maaha waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna iyadana ogaada imtixaan weeye waa nicmo dhinacna waa imtixaan faqriguna waa imtixaan xoolahaad haysana waa imtixaan labadaba bal kan inaad ku shukridana waa lagu imtixaani tan inaad sabirtana waa lagu imtixaani mid kalena aayaddu way ina bartay caqliga iyo garaadka aadamaha iyo sida uu u fikiraaye qofkii xoolo leh ilaahay inuu jecel yahay bay moodaan qofkaan xoolo lahayna ilaahay inuu nacay bay moodaan agtooda waxaa qiimo lagaga yeeshaa intaaad xoolo leedahay waxaadna qiimo beeshaa markaad xoolo weydo haddii maanta xoolo lagugu og yahay dadka ninka ugu dabaalsan baa duqa ninka ugu qiimo badan ee ugu diracsanna hadduunan maanta xoolo haynin cidi waxuma dhiibato cidna waxma weydiiso midkaad og tahay inuu ugu jaahilsan yahay oosan waxba soo akhrisanin ee suulka ku saxiixa ugu caqli gaaban yahay ee dabaalka ah haddii ilaahay xoolo siiyo kii mutacalim ahaa iyo kii brofesor ahaa iyo kii caqli badnaa iyo kii wax yaqiinay isagunbaa masallaha iyo kabaha loo wada wadi waryaasoo saas maa haa sayidi saan baa la wada dhihi dadku waa xoolo wannaasu xayu yakuunu ljaahu waalmaalu way indhaha bini aadamku maalkaa ku weyn adduunyadan aad bay u jecel yihiin waa laynoo sheegi doonaayo watuxibuuna almaala xubban jamman baa layna dhihi doonaa aadamuhu ninkani wuxuu u haystaa ilaahay baa ijecel waxaa xoolaha adduunka la ii siiyey rabbii akraman tusaalayow baa qur-aanka layna siiyey suuratu lkahfi waxaa laynagu baray laba ninoo midna xoolo badnaa midna xoolo yara kii ugu faanay anaa kaa xoolo badan ana akaru minka maalan wa acazu nafaran wuxuu gaadhay inuu yidhaahdo ilaahay inuu jecel yahay baad ku garan xoolahaan haysto aakhare xataa haddii laysoo bixiyo kollaba xoolo ka badan unbaa laysiin waa ilaahay baa jecel mar walba walain rudidtu ilaa rabbi laajidanna khayra minhaa munqalaban aayadda waxaa shabahda aayadda awaakhirta suuratu fusilat walain rujictu ilaa rabbi ina lii cindahu lalxusna macnaha mafhuumkaas baa ilaahay tilmaamayey inuu been yahoosan jirin fii suurati saba baa ahayd baan markuu lahaa wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfa xoolihiinna iyo ilmihiinna midna ma aha kuwa alla idiin dhowaynayo inuu idin jecel u dhowdihiin astaan iyo calaamadu ah laakiin aadamaha sidaa u rumaysan faama alinsaanu idaa mabtalaahu rabbu hadduu imtixaano faakramahu uu karaameeye xoolo ku karaameeyo racabahu u nicmeeyo fayaquulu rabbii baa akramanii ijecel rabbi baa isharfay agtiisaan qiimo ku leeyahay agtiisaan ku weynahay walidaalika xataa risaalada ilaahay soo dejinayo iyo cidduu nabi ka dhigayo markii nabi maxamed ilaahay soo diray soo nimankii alayh slat slam quraysh sooma dhihin wiilkan ninkan faqiirkaa maxaa laga soo diri labada ninee taajiriinta ee waaweyn lowlaa nuzila haada alqur'aanu
calaa rajulin min alqaryatayni cadiim bay dhahdeen ragga odayaashee waaweyne maalqabeennada baa lagu soo dejiyey qur-aanka xataa waxyigii ilaah iyo risaaladii waxay rabaan oo ibni aadamku isleeyihin kanaaba ilaahay u dhow xoolaha badane baa lagu soo dejiyo saasay isu haystaan isna wuu ismoodayaa ilaahay inuu jecel yahay dadkuna ilaahay agtiisa inuu kuwa yahay moodayaan lidalika fii suurati alqasas qisada qaaruun marka laynoo sheegay maxaa la yidhi markuu soo baxay fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaaةa اdunya yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim alla ayaan badana ayaa weyn weydheen nasiib badan aad u nasiib weyn wey alla isagoo kale yaa nasiiye markii dhulka lala gooyeyna waykaana allaha yabsuط الrisqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir lowlaa amana allahu calayna lakhasafa bina waryaa ilan ilaahay cidduu doono oo xataa dadka xun buu ilaan xoolo siiyaa bay leeyihin hadda yaab iyo amakaag la taagan yihin weli wallaahi ilaahay hadduusan noo nicmaynin intii xoolo saa naloo siiyo unbaa saa naloo cadaabi lahaa markii hore waxay u haysteen nasiib weynida ilaahay agtiisaba inuu nasiib weyn ku leeyahay qofkaas caqliga aadamuhu waa kaas rabbii akraman iyo rabbii ahaanan ilaahay agtiisana waa innaga wuxuu diintuina bartay iimaan iyo camal saalixa qiimo lagu yeeshaa alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lama dhihin kuwa xoolaha badnaa wey inta siyarka ambiyadana wax maal badnaa waxaan xasuustaa nabi sulaymaan oo ilaahay mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi laga aqbalay maalin weyta nin baa weydiinayay ma ku ducaysan karaa ducadaas rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ma ku ducaysan karaa adduunyadan saasaynu wada jecella saa darteed ilaahay wuxuu yidhi ayaxsabuuna annamaa numiduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun ma waxay u malaynayaan waxaan xoolo iyo caruur adduunyada aan ku siino in khayrkii aakharoon qayb u soo dedejinnay uu yahay may u malaynayaan maya buli ilahay saa maaha ma dareensana waa la is imtixaanayaa qofkii xoolo lahow imtixaan baad ku jirtaa ma ku shukriyeysaa waajib ma ka gudanaysaa dadka baahan ma ka xiriirinaysaa agoonta ma tabaysaa masaakiinta wax ma taaranaysaa raximka iyo qaraabada wax ma u taraysaa haddaad u tari weydo ayaad soo socdaa tilmaami doona waxa kaa go-an intaasaa laysu wada imtixaanayaae falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu اllahu liyucadibahum biha fi اlxayaaةi اdunya watazaqa anfusuhum wahum kaafiruun soo towba mahayn suura tooba ahayd baan u malaynaya kalla sidaas ma aha in xoolaha qofka la siiyena la jecel yahay qofkaan xoolo la siinina la nacay maaha bal laa tukrimuuna ma karaamaysaan oo ma dhaqaalaysaan alyatiima agoonka kuwiina xoolaha la siiyey agoonka ma dhaqaalaysaan oo wax ma tartaan walaa taxaaduuna kumana guubaabisaan oo iskuma boorisaan calaa طacaami اlmiskiini miskiinka in wax la siiyo wax la taro wa ta'kuluuna waa cuntaan aturaaa dhaxalka aklan cunid laman oo weyn baad cuntaanoo waad ka boobtaan inta taagta daran iyo dumarkaba waa qadisaan wa tuxibuuna almaala xoolahana waa jeceshihiin xubban jacayl jamman oo weyn baad jeceshihiin waxaa idinka keenaya xoolihiibaa waxaynan ahayn baad u haysataan aad baad u jeceshihiin aadu jacaylkiina muxuu idin dhexashiiyey agoon iyo ilmo yaryar oo masaakiina aabbahood xoolaha uga dhintay dumar tabar daran inaad ka boobtaan ood ka dhacdaan oo inta taagta daran waad boobtaan oo waad dhacdaan intaan waxaysanin waxba ma taarataan agoonkana ma dhaqaalaysaan dadka waxaa u tabar daran agoon iyo miskiin waa labadii ugu tabar darayd inaad wax taarataan iska daaye ood wixiinna wax ka siisaane waxoodii baan idinka nabadgelin inaad wax tartaan iska daa agoon iyo miskiin iyo ilmo yaroo taag daran waxaad ku haliilaysaan ood boobaysaan wixii yaraaye aabbahood uga dhintay yaad boobaysaan halkaasuu xoolo jacaylka iyo maalka weynankiisu idiin noqday waxaad noqoteen sidii nabigu sheegay tacisa cabdudiinaari tacisa cabdu dirhami waay
addoon baa shilin baa addoon loo yahay xoolaha noolkooda iyo moodkooda baa addoon loo yahay iyagaa la caabudaya iyagaasaa xiriirkaaga xakamaynaya xiriirkaaga iyo goyntaada iyagaa colaadaadii iyo nabadaadii haya iyagaa saaxiibkaaga iyo qofkaad colka la tahay ku haya iyagaa sokeeye yeesheeye kuwa kallaa sidaa ma aha waxaasi waa imtixaan jacayl iyo nacitaan ma aha bal laa tukrimuuna ma karaamaysaan alyatiima agoonta ma karaamaysaan oo ma dhaqaalaysaan wax ma tartaan wax ma taarataan kama warqabtaan adoo raashinkii qurmay daadinaya buu agoonka dariskaaga adabkiisu dansanaadaa walaa taxaaduuna iskuma dhiirigelisaan isma fartaan iskuma guubaabisaan isma xasuusisaan calaa طacaami اlmiskiini qofka miskiinkaa in la quudiyo wax la taro oo xataa haddii aad wax weyday adigu war dadka lama hadashid war ilaahay ka yaaba war masaakiinta waxa loo taro war aan quudinna ma dhahdaan innagu dad masaakiin oo baahan markii la arko adoo muslina oo miskiinkan baahan muslin yahay baad leedaha wa hay-adihii gaalada ee waxaa bixin jiray ku gaalaad rabtaa inuu wax bixiyo waxaa lagaa rabaa adu miskiinka inaad wax siiso wixii kaa tabarbatay inta kuugu dhow inaad u qaylo dhaamiso dadku inay noqdaan mujtamac kooda taagta daran xasuusta kooda tabaalaysan tabaya koodaan waxaysanin wax u huraya saa inaad noqotaan lagaa rabo ood nicmadii ku shukrido ilaahay waxay noo iman doontaa aayado badan oo arrintaa ka hadlaya oo agoonka iyo miskiinka inagala hadlaya suuratu duxa waxay noogu iman doontaa fa ama alyatiima falaa taqhar ilmaha agoonkaa ha xoogin oo ha qasbin halkan dhaxal baa la xoogayaa soo maarti wa ama saa'ila midka tuugsanaya miskiinkaana falaa tanhara canaanan haddaad wax siin kartana sii haddaadan wax siin karinna qawlu macruufu wa makfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha adan inaad wax siisoo tiraahdo hoo ku goy imaanka alla ku tiriye waxaa ka fiican allaha kuu sahlay inaad tiraahdo intuu haysta haddaad ku qabsatana waxaa la ii sheegayay qolyahaynan isbabaawaagee kuwii mindiyaha wadan jiray nin miskiinoo masaaj ka tuugsaday habeen markuu baxay dhexda intay u istaageen inay ka qaateen intay mindidii ku qabteen bay ka qaateen uga wada kii agoonkaa dhacayay miskiin masaajid wax yar ka soo tuugsaday ka mindida bannaanka oo la istaagay ka daadsaday soo miskiinkii waxa la tara lahaa mid wixii yaraayee loo ururiyey kasii dhacaya maaha waa ama saa'ila falaa tanhar suuratu lmasadna waxaa inoogu iman doontaa suuratu lmaacuun baan leeyahay arayta aladii yukadibu biاddiin fadalika aladii yaducu اlyatiim walaa yaxudu calىa طacaami اlmiskiin miskiinka iyo agoonku say u wada socdaan mar walba ma aragtaa sadaqaadka waajibkaa zakada dadka la siina lagu wada dar ilahi subxana wa tacaala dadka xoolahoodii wax in la siiyaa aayaadka ka hadlayaan in la dhaco xoolahooda la qaatana suuraة النisaa ilahi wuxuu ku yihi in aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama ظulma inamaa yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslawna saciira naar huraysay geli doonaan xoolaha aad ka xoogteed cunteed ama ka khayaantayna dab aya naar aada liqaysa wey mararka qaarkood ilahi wuxuu noo tilmaamay sida wax loo farsameeyo xoolaha agoonta marna waa dhac booba marna waa dhac farsamaysan dhaca farsamaysan ma taqaanaa xoolaha nool markay isugu jiraan agoonkii aradbax iyo waxbuu u baahan neef baa in loo gada la rabaa neef yar baa u gooya wixiisi maya mid weyn baa laga soo qaban mid yaroo xunood adu leedahaad ugu bedeli kii xumaa baad u gali anuu neef baan kaga bedashee waa khayaano soo maha saa darteed baa aayadda lagu sheegay xoolihiinna xoolahooda ha ku bedelina intayna weynaanin ka gaadhsii xoolahooda boob ha dhihina saa darteed haweenka waxay isugu dari jireen carabtu dhaxalkana way ka qadin jireen xoogna way ku guursan jireen gabadha agoontaa hadduu isagu dad ugu xigo guursanna karo xoolihiina wuu ka dhici duqi markuu dhinto iyadiina xoog buu ku guursan cid yadii ahal iyo qaraabo hoos kala xididay oo dulmiga ka daadhihina ma laha
xoolaha markuu ka dhacayena isagaaba tol u ahaa isagaa dhinac tol u ah isagii dhacay baa xoog ku guursan qisada sida ay labada dulmiye isa saarana baa labadii oo isa saaran qur-aanku xusay wayastaftuunaka fi الnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi اlkitaabi fii yataama الnisaa'i allaatii laa tu'tuunahunna maa kutiba lahun watargabuuna an tankixuuhunna qaarkoodna hadday foolxun tahayna xoolahana uu ka qaadayana bax buu dhihi qaarayna watargabuuna aada nacaysaanna waa la dhihi karaa an tankixuuhunna can haddaan qadarno haddaan fiiha qadarnana inuu xoog ku guursaduu rabaa hadduusan jeclaasninna xoolihii lagu soo raaci lahaana waa ka xoogay iyadiina bannaanku ku tuuray waa agoon maa kutiba lahunnana siin maayo dhaqankaa carbeed bay soomaalidu qayb ka soo gaartay markay gabdhaha laga xoogi jiray dhaxalka laga qadin jiray ama carruurta yararka agoontaa wax laga xoogi jiray wa innahu lixubbi اlkhayri la shadiidun dheh wataakuluuna waa cuntaan aturaaa dhaxalkana aklan cunitaan laman weyn watuxibuuna almaala xoolaha jeceshihiin xubban jaman jacayl weyn baad xoolaha jeceshihiinoo iyaga dartood baad u dhimanaysaanba naf iyo wax walbana u goynaysaan kalla sidaas ma aha xooluhu iyo adduunyadan dhadhankeeda iyo nicmadeedu iyayna saa idinla weynaan saa uma weyna waxsaa loo jeclaadana maaha waxsaa la isu raaciyo mustaqbal weyn lagu xidhana maaha idaa dukad haddii la burburiyo alardu dhulkan dakan burburin oo wajaa uu yimaada rabbuka rabbiga iyo walmalaku malaa'igtii ay yimaadaan safan malaa'igtoo safsaf ah oo wajii'a la keeno yowmaidin maalintaas bijahannama la keeno yowmaidin maalintaasu yatadakaru linsaanu aadamuhu xasuusan doonaa wixii uu soo sameeyo xasuusan doonaa wuxuu doondooni doonaa oo jeclaysan doonaa inuu si uun isu daba qaban lahaa wa annaa lahu sidee bay ugu suuragal tahay addikraa waa xasuus iyo inuu waansamo maxay hadda u taraysaa yaquulu wuxuu leeyahay yaa laytanii shallaytadayde qadamtu maxaan u soo hormarsan waayey lixayaati noloshaydan dambe maxaan wax ugu soo hormarsan waaye oo wuxuun u keensan waaye shallayta iyo walwalkeed wax ma taraan hadda isdaba qabo waxaa layna raray adduunyadii baan joognay xoolihiiiyo saasaan u dhaqannay dulmigaasaa la sameeyey xuquuqdii baa laga gaabiyey waajibaadkii baa la gudan waayey lamaguma joogsaninee ummad baa la dulmiyey xuquuq iyo hanti xaq la'aan ah baa la qaatay dunidani way dhammaatay daar aakharaa la tegey dunidii waa la rogay dadkiina waa la soo nooleeyey qiyaamaa la yimid rabbi baana la hor istaagay jahannamana waa la keenay xisaabna waa la isula yimid xaggee baad ku tirsantahay maxaad horay geysatood filaysaa ma raynrayn baad filanaysaa mise walwali iyo walbahaar iyo shallayto iyo yaalaytadii baad sugaysaa qiyaamadii oo timid iyo naartii oo la keenay baa laynoo sheegay kadibna waxaa lagu xijisiiyey dadkii oo qaybsamay inna walwal iyo walbahaar iyo hoog iyo habaar ula timid inna raynrayn iyo farxad iyo janno iyo naciim ay u yimaadeen maxayna soo kala baxeen xoolihii iyo adduunyadii intii la joogay in waajibna gudatay dulmi iyo dembina iska ilaalisay iyo in waajibkiina dayacday dulmi iyo xadgudubna samaysay baa loo soo qaybsamay aakharana abaalkii baa la kala dhaxlayaa wixii la soo sheegay kalaa idaa dukad marka la burburiyo ardu dhulkii dakan burburin dhulkan waa la burburinayaa buurihii baa la baabi'inayaa togogii baa la baabi'inayaa dhirtii baa laga xaaqayaa yowma tubadalu lardu hayra alardi waaye dhulkii dhul aan ahayn baa laga dhigayaa see looga dhigay waydal ardu muddat waaye dhulkii waa la kala jiidoo waa la kala fidiyey markii la kala fidiyey maxaa dhacay meel taaganna ma laha meel godanna ma laha laa taraa fiiha ciwajan walaa amtan waaye laa taraa fiiha ciwajan meel godan arki maysid oo laaba walaa amtan meel taaganoo buurana arki maysid waxumilat ilardu waljibaalu fadukkataa dakkatan waaxidatan waaye burburin keliyaa la burburiyey oo markii la burburiye maxaa dhici fa yowmaidin waqacat ilwaaqica way qiyaamada markaas imanaysa uunkan waa la rogayaa meelo badan baan ku soo marnay oo juscama intaan ku soo jirnaya samada iyo dhulka iyo sida loo kala baabi'inaya
saas darteed miskii sidaa loo wada baabi'iye sidaa loo wada sameeyo dhulku waa wada muuqanayaa taa kala qariya iyo meel godanoo kala qarisa ma laha dhir iyo geed kala qarisa ma laha taa weeyatuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala watara alarda baarizatan waxasharnaahum dhulkii oo wada muuqdaad arkaysaa waanan isu wada keennay markii la isu wada keeno wa jaa'a rabbuka rabbigaa baa imanaya lifasli alqadaa'i addoommada in la kala saaro imaatinkaasi goormuu imanayaa waxbaa ka horeeya 50 kun oo sanaa la taagnaanayaa khalqigu taagnidii baa ku dheeraanaysa mar in lagu kala taga meeshaa la jeclaysanayaa nin walba wuxuu mutayna la geeyo ambiyadaa loo wada ergoonayaa fasal rabbikaa la leeyahay ilaa nabi maxamed laga yimaado sala allahu calayh waalihi wasalam markaasuu wuxuu leeyay ana lahaa nabi kastana waa soo cudur daaranayaa maya maya nafsi nafsi ilaahu nafteyda maanta aan u badbaadi u leeyahay nebi walba wuxuu leeyahay ambiyadii loo tagoo nuux laga soo bilaabay oo ibraahim la soo maray oo muuse la soo maray oo ciise la soo maray ululcasmigii ina rabbii qad hadiba alyowma hadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah ilaahay maanta wuxuu carooday caro iyadoo kalena hore uusan u caroon dibna uusan u caroon doonin nafsii nafsi aniga nafteedaan u yaabanahay maanta idhabuu ilaa hayri idhabuu ilaa fulaanin ilaa nabi maxamed la yimaado taxta alcarshi buu ku sujuudi doonaa nabiga sal slam ilaahay buu baryi doonaa waxaa la dhihi doonaa sujuud madaxa kor u qaad waa laga aqbali weydiiso waa lagu siin markaasuu ilaahay weydiin doonaa dadkan in la kala xukumo casaa an yabcaaka rabbuka maqaama maxmuudan markaasuu rabbi lifasl qadaa'i u iman doonaa wa jaaa rabbuka rabbigaabaa iman doona malaa'igtuna khalqigay hareerayn doontaa malaa'igtuna khalqiga hareerayn doontana cirka ayaan balbaabay in laga furo wafutixat الsamaau fakaanat abwaaban baan soo marnay albaabay noqon markii albaabadii la furo maxaa ka soo baxaya malaa'igtii kor jirtay baa soo degaysa wاlmalaku calىa arjaa'iha wey daafaheedoo dhan malaa'ig baa joogta intii yaradee aadama ahayd malaa'ig baa jiriqsa ugu wada xeeran aadamahana malaa'igtaa ka badan jahannamaan ugu tegi doonaa naarta keliya jahannamo keliya 4.9 bilyan 409 bilyan baa haynaysa jahannamo keliya xarga ku hayaan aduu 70 kun ku dhufo waa imis 70 kun oo 70 kun lagu dhuftay baa jahannamo keliya haysa iska badaa waxa kale rabbigaa inuu imanayana aayaddan keliya maaha hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabbuka ma waxay sugayaan inay malaa'igi timaaddo ama rabbigaa yimaado waxaan ahayn bay sugayaan ama ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulali min alghamaami siduu ku imanaya aayaadkaa qayb tilmaamayaan rabbi markaa uu yimaado malaa'igtiina ay sii joogtay safsaf tahay wajii'a waxaa la keenayaa yowmaidin maalintaas bijahannam jahannamaa la keenayaa waburizat iljaxiimu liman yaraa suuratu naazicaad baan ku soo marnay jaxiimaa loo soo daahirin qofkii arkaya suuratu shucarana waxay ahayd waburizat iljaxiimu lilghaawiin kuwa lumay baa jahannama jaxiim naartii jaxiima ahayd loo soo daahirinayaayoo loo keenayaa la tusaya ayaddanna waxaa layna yidhi wajii'a yowmaidin lala yimaado la keeno bijahannama fagaaraha qiyaamaa la keeni hortaaday kaaga muuqan walciyaadu biاllah nabigan waxaa ka sugan fi صaxiixi muslim min xadiidi ibni mascuud jahannamaa la keenayaa lahaa 70,000 zimaamin 70 kun oo xarig oo silsilad baa ku xihan maca kulli zimaamin 70,000 malakin yajuruunaha xarig kasta oo 70kaa ka midana 70 kun oo malag baa haysoo xajinaya oo jiidaya igu sii daayaya waxaan doofaaradan rabbi rumeeye laga waayo way fakfakanaysaa halkaasaa la isgeyn doonaa 70 kun oo xarig kastaba 70 kun oo malag ay hayaan wey waa la celcelinaya waa la jiijiidayaa xooggeeda malaa'igtana oo hal malag baa intii loo soo diro oo aadamo dhan iyo qaryooyin dhan uu baal hoos ka geliyo dhulka la gooyo buu dabagedin jiray
malaa'igtii xooggaa lahayd baa 70,000 halkii xarig bay haynayaan oy fakfakanaysaa jahannama marka lagugu soo daayo ninkii allah inaga badbaadiye qofkay ku fakata beer bisil inay kaa kicmu malayn ilaahay inaga badbaadiyo yowmaidin maalintaas markii jahannamo la arko wixii la inkirayay qiyaamada ahay run inay tahay la arko xisaabtii iyo diiwaanadii la arko yowmaidin maalintaas yatadakaru linsaanu insaanku waansami doonaa wa annaa lahu maxay u taray adikraa waansan maalinkaasuu waanadii iyo wacdigii garaysan doonaa oo inay run ahayd ka dhaadhici doontaa oo in la qaata inay ahayd oy waajib ahaydoo loo baahnaa uu garawsan doonaa garawsi muxuu tarayaadii waa la soo dhaafay waktigii wacdigii iyo waanada hadda abaalmaris baa la joogaa yaquulu wuxuu dhihi yaa laytanii shallaytadaydee qadamtu maxaan u soo hormarsan waaye lixayaati noloshaydan maxaa wax ugu soo hormarsan waaye ama min xayaatii laan bimacnaa minoo xayaatadaydii maxaa wax uga soo hormarsan waaye saa inuu u shallaayi doono waxaan soo marray suuratu naasicaat yowmaidin yatadakaru linsaanu maa saca yowma yatadakaru linsaanu maa saca qofku wixii uu soo sameeyey wuu wada xasuusan doonaa waana la wada hordhigi doonaa amaa inuu shallaayi doono fii suurati alfurqaan baa lagu sheegay wayowma yacadu الظaalimu calىa yadayhi yaquulu yaa laytanii اtakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaana khaliila calaacal buu bilaabaya waxaa kaloo dhihi doonaa yaa xasratanaa shallaytadayadee calaa maa faratnaa fiiha waxaanu ku soo xadgudubneen soo dayacnay adeer maanta wax ma tarto wuxuu jeclaysan doonaa muslim inuu noqdo rubamaa yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin gaaladu waxay jeclaysan doonaan inay muslim noqon lahaayeen adduunka markay joogeen markii naarta la geliyena shallaytada iyo calaacalkaa iyo baa sii socon doona yowma tuqallabu wujuuhuhum fi الnaari yaquuluuna yaa laytana aطacna allaha wa aطacna الrasuula maxaa ilahi rasuulkiisu aطeeci weyn bay ku walwali doonaan fa yowmaidin maalintaas laa yucadibu ma cadaabayo cadaabahu ilaahay cadaabkiisoo kale axadun qofna walaa yuuhiqu ma xirxira qofka wahaaqahu xirxirkiisoo kale axadun qofna waxaa laynoo sheegay cadaab weyn baa la iscadaabayaa waana la isku dhex xidhxidhayaa khuduuhu fagulluuhu uma aljaxiima salluuhu maxaa ku xiga uma fii silsilatin darcuhaa 70 diraacan faslukuuh silsilad 70 dhudhun ah oo naar ah baa lagu xidhxidhayaa naarta dhexdeeda alaglaal soo maaha xarga naareed baa lagu xidhxidhayaa ina ladaynaa ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima ankaalan xargaha ciqaabta waaye cadaabkaa naartaa ku jir kuna dhexxidhxidhno waaye xarigga meeshaa lagu xirxirayo xarigga ilaahay cid xiri kartana ma laha cadaabka ilaahay cid cadaabi kartana ma laha cadaabka weyn ee qiyaamo in shalay soo marnay aakhirkii suuradda alcadaab alakbar kii baa la geenayaa allah inaga badbaadiyo intaasi waa dadkii xumaa ee waansami waaye ilaahay ka baqi waaye ee wacdiga nolosha ku qaadan waaye ee waktigii takliifta dembiga ka toobad keeni waaye ciddii qaadatay maxaa sugaya haddii qiyaamada la yimid iyagu qowmkaasi tan iyo maalinkay naftu qabatay ilaa maalinka ay jannada galaan qoladaasi waa farxad iyo raynrayn iyo barwaaqo shalay baynu soo marnay wujuuhu yowmaydin naacimatun lisacyihaa raadiya fii jannatin caaliya laa tasmacu fiiha laaqiya haddana markay sakaraadka gaadho baa malagu imanayaa sidanaa la odhanayaa yaa ayatuha الnafsu naf yahay almuطma'innatu iimaanka iyo khayrka ku xasishay irjicii noqo oo soo bax ilaa rabbiki rabbigaa xaggiisa raadiyatan adoo raalli ah mardiyatan raallina lagaa yahay fadkhulii gal buu ilaahay ku yidhi kuu soo faray fii cibaadii addoommadeeda wan wanaagsan ee la sharfay wadkhulii gal jannatii jannadaydana gal xilliga u horeeya lagu dhihi waa xilliga nafta laga qaadayo fii xadiidi اlbaraa bni caazib cinda alimaami axmeda wاlxaakim wagayrihim
صحيحة وكيري إن العبد المؤمن قفك مؤمن كه هدو الدنيا كتشيت سدو آخران أتشيت سدو ملايك باو سود دقيس سمدا كسود دقيس بيض الوجوه وتشغد آذو عديه waxay u fariisanayaan waxay wadaan kafan jannada laga keenay iyo xanuudkii lagu carfinayo jannada laga keenay ishu meeshay qabatay gaartay u fariisanayaan kadib baa malakumood baa soo degi madaxa agtiisu fariisan markaasuu wuxuu dhihi yaa ayatuha nafsul mutmainna ukhruji ilaa maghfiratin min allahi wa ridwan naftan xasishayay soo bax buu dhihi dembi dhaaf iyo raalli noqosho ilaahay u soo bax fatasiilu kamaa tasiilu alqatratu min fi siqaay biyuhu say afka qarbadka iyo weelka uga soo tifqaan si fudud oo uga soo baxaan bay si fiican oo tartiiba u bixi waa aayaddii kale suuratu fusilat ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu malaa'ig baa ku soo degi ha cabsanina waxa idinka horeeya ha murgina waxaad ka soo tagteen ha walwalina waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydiin ballan qaadayay ku bishaaraysta naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati اdunya adduunyada intaad joogteen annagaa garabkiina ahayn wa fi laakhirati annagaa garabkiinaa walakum fiiha maa tashtahii anfusukum aakharana waxaad leedihiin wax kastoo naftiinu jeclaato walakum fiiha maa taddacuun wax kastoo dalbataan oo codsataan nuzula min ghafuuri raxiim martisoor allihii naxariista badnaa ee dembi dhaafka badnaa oo idiin fidinayana wey halkaasaa lagaga soo yidhi qiyaamadana waxay ku iman farxadda iyo raynrayntaasay ku iman labadaas aniga adigu keen u shaqaysanaynaa waay meeshan naf jeclaysina maaha allow yaa iga dhigana maaha allow yaa iga dhigiyo jacayl dhaqan falkaaga iyo afkaagaba saameeye le waay hadda inta wixii ka bilowda masaakiintii maxaan ka yeelaynaa wey agoontiisa maxaan ka yeelaynaa inta ina mudatay iyo dhaxalkoodiioo ma boobaynaa xoolaha jacaylkooduse xukunkii iyo xuquuqdii waajibaadkii mayna dhaafin doonaa hadduu ina dhaafiyo wajii'a yowmaydin bijahannama xasuuso haddaad aragta adoo soo ku dhaafinaya yaa ayatuha nafsu lmutma'ina inuu ku seejin rabo shaydaan ogow kuwan dambana allah inagu daro kuwa horena allah inaga badbaadiyo halkaasaan ku daynaa subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk